qabtaan oo ilmaha ama walaalihiisa asigaa ka wakiilaha waxaana lagu gumaadaana inaan jareernahay waay wax kala maaha aabbahay suuliya saxiix lagama haayo arrintan adaa galayo u xiran yahay adaa maslaxa u galayo u xiran yahay yaa muslimiinoo noo soo gurmanaayo dad masaakiin oo jareeraan nahay maadna markaan baxno qutulyoonkaan nugu filanaa soo shaqaysanaa wax kaloo meel loo dhigma male hanti ma lihin xoolo aan leenahay male dadka islaamka waxaan ka rabnaa inay wax noo qabtaan macalin cabdikariin bilaal oo ku magac dheer macalin B oo ahaa bare iskuul waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose waxaana loo haystaa lacag dhan 120,000 oo dollarka Mareykanka oo aan ahayn qaan lagu leeyahay dembiyay galina loo dilaa dembiyo usu shaqo ku leheen macalin B tuug ma ahayn dalaal ma ahayn nin muslim la jecel yahay xaafadda laga jecel yahay ummadda jeceshahay macalin iskool meel kasta laga yaqaano oo hadda xataa madaxweynihii oo horeeyo ninkii la lahay Sheekh Shariif iyo usoo xataa iskool ay la dhigi jireen nin caan waaye tuug ma ahan 8 bilood oo ilmihiisa ka maqan yahay oo meel ku xiran yahay xoog ku xiran yahay ma ahine sharci kuma xirna 120ka ma cunin shaqana kuma laha muddo 8 bilood ayuu ku jiraa xabsi lagu tilmaamay in uu yahay mid sharci darro ah maadaama maslaxad uu sameynayay darteed loogu soo dalacay lacagtaasi sideed bilood oo maqan yahay dadka muslimiinta waxa ku codsanayna aabay inay noo soo daayaan caruurtii uu dhalay macalin cabdikariin ayaa waxa la soo gudboonaatay nolol xumo aad u liidata maadaama aabahood oo udub dhaxaad u ahaa nolosha qoyska waxaana ay naawilayaan in mar kale ay la midoobaan aabahood mid ka mid ah ardaydii uu wax soo baray macalin cabdikariin ayaa ka sheekeynaya shakhsiyadda barihiisii iskuulka aniga waxaan halkan ka cadeynayaa markii cabdi bilaal inuu macalin iskuul u ahaa 1976 ilaa alaan ilmahayga uu sii dhigo in xoogsataa oo xoogisku noolna inuu ahaa waa cadeynaynaa inuu nin muxsin oo masaajidka ka bixin jamaacada salaad subax iyo mid uu adagba nagala qayb qaato dhibaatada ka dhacdo deegaanka ama xaafadana ninka u horeeyay inuu ahaa waa ka xunahay maqaadiir way dhacdaa dadka gacanta ku hayo oo islaamka iyo dadka walaalaha oo hadda maqlayo waxaan gaarsiinaynaa inuu cabdi bilaal u baahan yahay xuriyadiisa ee qof kasta loo baahan yahay inay soo garab istaagto dadka dariska la ahaa macalin cabdikariin ayaa qiray wanaagiisa iyo xushmada uu ku lahaa xaafadii uu deganaa annaga cabdi bilaal dariskiisa xaqeed baan waxna uma qaban karno murugo iyo hurdana waa la hurdi weyna ilmiina waa la murugoonay annaguna wax ma qaban karno xoolama haysano dhiikar waa qabaa waa nin iska wuxuu ahaa biilkiisa iska raadsado oo macalin maamuro iskool oo iska shaqaysto oo biilkiisa qalinkiisa reerkooda dhan ku biil jiray oo ka kooban 100 qof isaga biil jiray uguna weyna qoyska cabdikariin bilaal ayaa sugaya gacan bini aadannimo oo kaga timaada cid kasta oo gacan ka geysan karta soo deysmada iftiinka qoyska si mar kale ay u arkaan noloshii quruxda badnayd oo ay ku wada noolaayeen iyaga iyo aabahood